bismillaahi raxmaani raxiim. dhammaan asxaabta la socota channelka Qaraaxo Tube waxaad ku soo dhawaataan waxyaabihii ugu dambeeyay kubadda cagta, hadalhaynta ugu weyn ee maanta ka jirta kubadda cagta, iyo sidoo kale kulamada soo socda koobka adduunka wareegga dhamaadka xilliga la ciyaari doono. kubadda cagta waxaa maanta qabsaday Cristiano Ronaldo oo aqbalay ku biiritaanka kooxda kubadda cagta ee Juventus. Cristiano Ronaldo ayaa aqbalay inuu ku biiro kooxda ka dhisan horyaalka Talyaaniga Serie A ee Juventus. 100 milyan oo lacagta Euro-ga ah una dhiganta 88 milyan oo lacagta pound-ka ah, sidoo kale 116 milyan oo dollarka Mareykanka ah ayaa lagu fasixi karaa xidigan sida ay qortay shabakada la yiraahdo Ocho. Juventus ayaa mar hore dalab ka soo gudbisay kabtanka xulka qaranka dalka Portugal, waliba wakiilka ciyaaryahankan Mino Raiola ayaana shaqadan hawsha kula jira. 120 milyan ayaa ugu badnaan lagu fasixi karaa Ronaldo marka la fiiriyo qiimaha ay Madrid ku doonayso. xiriirka ka dhaxeeya madaxweynaha Real Madrid Florentino Perez iyo Cristiano Ronaldo ayaa hoos u dhacay markii ciyaaryahankan Madrid ay ku guuldareysatay inay heshiis cusub ay ka saxiixato. waxyaabaha kale ugu waaweyn waxaa ka mid ah Real Madrid ayaa beenisay wararka sheegaya inay aqbashay in 272 milyan oo lacagta Euro-ga ah ay ku soo qaadanayaan weeraryahanka kooxda Paris Saint-Germain Kylian Mbappe. sida uu baahiyay wariye u dhashay dalka Faransiiska oo lagu magacaabo Baptiste Rabiot, Madrid ayaa la soo wariyay saakadii hore inay aqbashay in bedelka Cristiano Ronaldo ay ka dhigato Kylian Mbappe, balse warkaas Madrid waa ay beenisay. Madridna waxaa diiradda u saaran inay soo qaataan xidiga lagu magacaabo Neymar. Inter Milan ayaa 22.7 milyan ku soo gabagabaysay ciyaaryahanka lagu magacaabo Lautaro Martinez, kaas oo kooxo badan ay raadinayeen. xidigan ayaa wax badan lagu raad joogay, balse wuxuu dhameystiray ku biiritaanka kooxda ka dhisan garoonka San Siro ee Inter Milano. Nerazzurri kooxo badan ay ka dulqaaday ciyaaryahankan iyadoo la soo wareegtay xidigo ku jiro Rachin Angolan. Everton ayaa dalab ka soo gudbisay difaaca dambe ee kooxda Barcelona Yaramina, kaas oo 3 gool ka dhaliyay koobka adduunka waliba kulamo muhiim ah. Yaramina iyo xulkiisa Colombia ayaa ku soo haray rigoorooyin ay guuldar kaga kulmeen xulka qaranka dalka Ingiriiska, balse bandhigiisa koobka adduunka iyo sida uu caawiyay xulkiisa waxaa aad ula dhacay kooxda kubadda cagta Everton oo xidigan rabta sida Liverpool ay warinayso inay soo qaadato. Inter Milan waxay ku soo biirtay wada hadallada loogu jiro difaaca dambe ee kooxda Manchester United Matteo Darmian, sida uu baahiyay warsidaha la yiraahdo Sky Sports Italy. kooxda kubadda cagta Manchester ayaan ku qanacsaneen bandhiga xidigan Matteo Darmian la yiraahdo, waxayna doonayaan ciyaaryahano kale booskiisa inay ku bedelaan. 20 milyan oo lacagta Euro-ga ah ayaa laga yaabaa in lagu fasaxo xidiga la yiraahdo Matteo Darmian. William Chelsea wuxuu ku cadaadinayaa inuu ku biiro kooxda Barcelona sida ay warisay Mundo Deportivo. ciyaaryahankan Brazilianka ah ayaa 80 milyan Chelsea ku fasixi kartaa, sababtoo wuxuu doonayaa noloshiisa gabagabada kubadda cagta inuu ku soo gabagabeeyo koox weyn. waxyaabihii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ay ahaayeen Qaraaxo Tube ayaadna kala socotaan daawadayaal. koobka adduunka waa la nasan doonaa caawa ilaa iyo berri. maalinta Jimcada ayaana la ciyaari doonaa kulamada wareegga dhamaadka ee koobka adduunka 2018. xulal muhiim ah ayaa hadda isku soo haray marka la fiiriyo bandhiga la sameeyay iyo waliba xidigaha haray. sabdidii ayuu bilowday wareeggan 16, waxaana haray xidigo badan iyo xulal waaweyn Portugal, Spain, Argentina, Colombia, dhammaantood way isaga hareen koobka.